بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على محمد وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. waxaan joognaa oo ay taariikhda 14 bisha Juulaay 2025 garacad khaasatan warshada maartay kalluunka ee laga dhisayo magaalada garacad maartay garacad fisher baa loo bixiyay man filaya magacaas ee leedahay company marka waxa weeye company dhismihiisa waa socda meel fiican oo maraya ilaaha baa mahadle waxa weeye sidoo kale halka markii warshadii weyneed way halkaasi halkan maartay qaybtan waa qaybtii maartay shaqaalaha degi lahaayeen way guryaha kali oo ay degi doonaan shaqaalaha company-gu meel fiican bay maxaadeedu maraysaa shaqaalaha company waa ka mas'uuliyad degi lahaayeen way halkan waa masjidkii weeye ma sha Allah warshada marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu hergeliyo kalluunka geeskan oo dhan ka soo baxay doono oo company soo saari doono oo la gaarsiin doono insha Allah Afrika oo dhan iyo Soomaaliya intii ilaahay gaarsiiyaba ma sha Allah way ilaahay waxaan wadaysanaynaa inuu company-ga oo noo hana qaado oo kalluunka aan meelaha fog keenay ka leeyaano oo ilaahay naga maartay naga gargaaro oo aynu badeena shaqaalaha waxa kaaga daray intaas oo shaqaalaha oo ka shaqeyn doona oo nooc walba leh oo shaqo ka heli doona bad iyo bariba jooga ma sha Allah waxa weeye ilaahay waxaan wadaysanaynaa inuu hergeliyo company-ga dadka shaqeeyo waxaan leenahay Allah idin abaal mariyo idinkana maartay shaqadaas iyo ganacsiga aad dhigateen ilaahay subxaanahu wa ta'aala maartay ganacsi bulaala oo barakooba Allah idinka dhigo oo ka maartay muddo dheerna dadkana anfaca iyo dalkaba anfaca Allahumma salli ala Muhammad wa sallim waxa uu dadku shaqeysto baan dhibaatooyinka waxay tahay shaqaalaanta intaas shaqaalaha ka qaadan doonta intaas oo reer baa ku noolaan doona badii baan ku noolaanaynaa nabad iyo amniga inaynu inteena kala ka shaqeyno ayaan codsanayaa saynu Soomaalinahay wadankeena waa buuxa bad iyo bariba waa Cabdi Majid bal Muslim. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.